السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا idin salaamaya dhamaantiina waa xuseen baale soo dhawaada mar labaad haduu ilaahay idmo. Today we shall learn about tense. maanta waxaan baran doonaa ku saabsan waqtiga insha Allah. mahadsanidin. subscribe saara walaalayaal, like saara. What is tense? What is tense? Tense is a form of the verb which indicates the time of action. Tense waqtiga is a form waa hab of the verb of ficil ah which indicates kaasoo tilmaamaya the time waqtiga of action oo ficilka u dhacay. Question 2. How many tense are there in English? How many tense imisa waqti are there ku jira in Englishka? Macnaha imisa waqti ayuu leeyahay Ingiriiska? There are 12 tense in English according to their classification, but they are exactly from their tense. There are 12 tense. waxaa ku jira 12 waqti in Englishka according sida waafaqsan to their classification kala saaridooda ama kala soocidooda, but laakiin they are exactly from waxay si hufan ah ay aga socdaan their tense waqtiyadooda. Question 3. su'aasha saddexaad. What are they? maxay kala yihiin marka waqtiyadaas ay kala socdaan? maxay yihiin? What are they? maxay yihiin? They are waxay yihiin present tense waqtiga xaadirka. Past tense waqtigii laga soo tagay ama fal laga soo tagay. Future tense waqtiga mustaqbalka. Future tense waqtiga mustaqbalka. Thanks. aad ugu mahadsantihiin daawadayaal sida quruxda badan aad aga qayb qaadateen oo aadna u dhageysateen casharka. waa idin hambalyeynaya, waa idin mahadcelinayaa. inta aan YouTube ku xirnayn waxaan leeyahay subscribe saarta, like ta dhaha, gambaleel.